assalaamu calaykum waa mubaarig maxamuud saleebaan iyo janalkeenii tayadoon miidiya fadlan haddaad ku cusub tahay sabskrayb saar sidoo kalena gambaleelka yar furo si aad ula socoto casharada dambe ee aanu soo gelin doonno annagana ay noogu noqoto dhiirigelin. maanta waxaanu ka hadlaynaa taariikhdii sulaymaan alqaanuuni hogaamiyihii ka ilmaysiiyey yurub. waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah salaadiintii ugu saamaynta badnaa ee soo maamulay dunidan. magaciisu waxa uu baaqdin iyo argagax ku beeri jiray boqorradii reer galbeedka. 46 sano oo uu xilka hayay boqor sulaymaan alqaanuuni waxaa lagu tiriyaa inay ahayd xilligii dowladda cusmaaniyiintu ay ugu awoodda badnayd, waxaana loo yaqaanaa wakhtigii dahabiga ahaa. gobolladii dowladdii cusmaaniyiintuna waxay ku faafsanaayeen 3 qaaradood. sulaymaan ibnu saliim alqaanuuni waxa uu ku dhashay sannadkii 900 ee hijriga magaalada taraabsuun, xilligaas oo aabbihii ka talinayay magaalada. wuxuuna aabbihii yaraantiisii uu ku dadaalay barbaarintiisa isaga oo culum kala duwan baray, kuwo diini ah iyo cilmiga hoggaaminta iyo maamulka. haddaba sulaymaan alqaanuuni wuxuu xilka qabtay isagoo jira 26 sano. da'yaraantiisa waxay ka dhigtay mid ula muuqday boqorradii yurub iyo madaxdii hoostegi jirtay saldanadii cusmaaniyiinta, hoggaamiye ay sahlan tahay in laga adkaado marka loo eego da'yaraantiisa iyo khibrad la'aantiisa. laakiin sulaymaan alqaanuuni ma noqon sidii ay ka filayeen. dhinaca kacdoonnadii uu dabargooyey suldaan sulaymaan bilowgii xukunkiisa. sannadihii ugu horreeyey ee xilligii sulaymaan alqaanuuni wuxuu wajahay 4 kacdoon, kuwaas oo ka mashquuliyey dhaqdhaqaaqii jihaadka iyo dejintii qorshe cusub oo uu ku hoggaamin lahaa dowladdiisa, kuwaas oo ay guddoomiyaashii qayb ka midihii ay moodeen inay heleen fursad ay kaga go'i karaan dowladdan wiilka dhallinyarada ahi hoggaaminayo. kacdoonnadaasna waxaa ka mid ahaa kacdoonkii shaam. waxaa hoggaaminayay waaligii xilligaasi cismaaniyiinta u fadhiyey shaam, kaasoo lagu magacaabi jiray jaan baras khazali. wuxuuna ku dhawaaqay inuu ka soo horjeestay dowladda cusmaaniyiinta, wuxuuna isku dayey inuu qabsado xalab, laakiin uma suurtogelin. wuxuuna amray sulaymaan alqaanuuni in la damiyo fidnada uu waday khazali, waxaana madaxiisii loo diray istanbuul iyadoo caddayn looga dhigayo inuu dhammaaday kacdoonkaasi. kacdoonkii masar waxaa sameeyey axmed shaah, kaasoo weligii jeclaa in loo dhiibo xilka sadrul acdam oo ahaa xilka ugu sarreeya ee qofku ka qabto dowladdii cusmaaniyiinta. wuxuuna hadda xilkaasi u dhigmaa ra'iisul wasaare, laakiin kuma guulaysan inuu hadafkiisa gaadho. wuxuuna codsaday in loo doorto guddoomiyaha masar. markii masar uu tegey wuxuu isku dayey inuu dadka dhinaciisa u soo jeediyo, wuxuuna naftiisa u doortay boqor ka gooni ah dowladdii cusmaaniyiinta. laakiin dadkii cilmiga lahaa iyo ciidamadii dowladda cusmaaniyiinta arrinkaas way aqbali waayeen, aakhirkiina way dileen. kacdoonkii 3aad waxaa sameeyey baabuduun oo ahaa shiici raafida ah. wuxuu soo ururiyey dad gaadhaya 3,000 ilaa 4,000 oo kacdoon wadayaal ah, kuwaas oo ka soo baxay gobolka yusgaadh. wuxuuna dul saaray gobolka cashuur ilaa uu gaadhay heer uu jebiyey ciidamadii cusmaaniyiinta, inkastoo markii dambe uu ku dhammaaday in madaxiisa loo diro istanbuul. kacdoonka 4aad waxaa hoggaaminayey qalandaar jalabi oo ahaa isaguna shiici. taageerayaashiisu waxay gaadheen 30,000, waxayna dileen muslimiintii sunniga ahaa ee ku noolaa gobolka konya iyo markash. haddaba bahraan baasha ayaa loo diray si uu u hor istaago kacdoonka socday, balse waa la dilay. haddana waxaa loo diray sadrul acdamkii ibraahim baasha, isaga ayaana ku guulaystay inuu dhinaciisa u soo jeediyo una soo jiito qaar ka mida taageerayaashii qalandaar jalabi, isagiina waa la dilay. kadib markii uu dhammaaday dagaalkii uu sulaymaan la galay kacdoonnadaas, wuxuu bilaabay qorshe uu ku yegleelayo dowlad ka awood iyo cudud weyn tii uu ka dhaxlay aabbihii. wuxuu jideeyey qawaaniin iyo go'aamo cusub oo asal uu uga dhigay ilaalinta kala dambaynta iyo haybadda dowladdii cusmaaniyiinta. qawaaniintaas badan ee uu jideeyeyna sulaymaan waxay sababtay in loogu naanayso alqaanuuni.
dhinaca u hayaankii Yurub kadib markii uu dib u habeyn ku sameeyey maamulkii gudaha wuxuu u jihaystay Sulaymaan al-Qaanuuni dhanka Yurub oo xilligaasi loolan adag kula jirtay Cusmaaniyiinta waxaana xilligiisii ku soo biiray ciidamadii badda ninkii la odhan jiray Khayrudiin Barbarossa oo hogaamiye u ahaa koox weeraro ka geysan jirtay xeebaha dhacay Spain iyo maraakiibta reer galbeedka wuxuuna yagleelay Sulaymaan awood ciidan oo uu hogaamiye uga dhigay Khayrudiin Baasha oo sidoo kale reer galbeedku ugu yeedhi jireen Barbarossa oo macnaheedu yahay garcase oo ahaa ninkii ku jebiyey guutadii daahirka ahayd ee Charleskii shanaad ee uu hogaaminayay Antriatora jasiiradda Benon sanadku markuu ahaa 1531 miilaadiga sidoo kale Khayrudiin Barbarossa waa ninkii ku jebiyey goobtii Brifesa sanadkii 1538 goobtii Brifesa ee Barbarossa guusha ka soo hooyey kiristaankii isa soo bahaystay xogtoodii oo koobanna waxay ahayd taariikhdu waxay ahayd 1538 iyadoo halkaasi xun loogu jebiyey kiristaankii isa soo bahaystay dagaalkaana waxa lagaga dejiyey 10 markab 3 kalena waa laga gubay 36na waa laga qabsaday 3,000 oo askarina maxaabiis ahaan ayaa looga qabsaday dhinaca Turkiga goobtaas hal markab lagama dejin keliya waxaa jiray dhowr markab oo jogo ay soo gaadheen waxaase soo gaadhay khasaara in laga dilay 400 oo nin halka 800 oo ninna laga dhaawacay sidoo kale waxay door weyn ka qaateen furashada magaalooyin waaweyn oo dhaca xeebaha Yurub taasoo siisay saldanadii Cusmaaniyiinta awood cabsi ku abuurtay reer Yurub sidoo kale awooddaas ciidan waxay ka caawisay dowladdii Cusmaaniyiinta inay noqoto ciidanka ugu lixaad weyn ciidamadii badda ee dunida ka jiray sababtoo ah waxay ka talin jireen dhammaan badihii dunida isku xidhi jiray oo kala ahaa badda dhexe badda madow badda cas gacanka carabta badweynta Hindiya iyo weliba waayihii dambe badweynta Atlantic haddaba dhinaca furashadii Rodas waxay ahayd jasiirad dhib badan dhufays adagna u ahayd dagaalyahanadii Qadiisulhanaa kuwaas oo jidgooyo u dhigan jiray xujaajta Turkida ahaa ee Xijaas u socota sidaas darteed Sulaymaan al-Qaanuuni wuxuu go'aansaday inuu furto jasiiraddaas wuxuuna ku qaaday dagaal weyn bartamihii sanadkii 1522 gacanta ayuuna ku dhigay oo wuu furtay dhinaca dagaalkii Muhakas dagaal aan ka go'ayn maanka Yurub waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah dagaaladii ugu waaweynaa ee ka dhacay dunidan sidoo kalena ugu yaabka badnaa saacad iyo badh gudaheed waxaa lagu cirib tiray ciidan dhan oo kor u dhaafaya 200,000 oo askari iyo boqorkoodii waxaana lagu furtay dhul lagu tiriyo kuwii ugu difaacaadka Yurub markii la gaadhay sanadkii 1526 ayuu la wareegay xukunka dalka Hungary boqor la dhihi jiray Filisladefkii labaad wuxuuna go'aan ku gaadhay inuu joojiyo lacagtii uu siin jiray dowladdii Cusmaaniyiinta taas beddelkeedana wuxuu diray ergeygii uu u soo diray Sultaan Sulaymaan al-Qaanuuni kaasoo u socday si uu u qaado cashuurtii sanadla ahayd arrintaasi markay dhacdayna waxay sababtay cadhada Sultaan Sulaymaan wuxuuna amray in loo diyaar garoobo dagaal lagu qaado boqorka Hungary oo xukunkiisa lagu burburiyo haddaba 22 Rajab sanadkii 932 Hijriga ayuu ciidan u hogaaminayay Sultaan Sulaymaan al-Qaanuuni laftarkiisa ciidankaas oo ka koobnaa 100,000 oo askari iyo 300 oo madfac iyo 800 oo markab ay u soo boqoleen dhanka dalka Hungary sidoo kale boqorkii Hungary wuxuu isna u soo baxay difaacidda dalkiisa isagoo hogaaminayay ciidan gaadhaya 200,000 oo askari sida muuqata ciidamada Hungary waxay 2 jeer ku labanlaabmayaan ciidamada dowladdii Cusmaaniyiinta haddaba ugu dambayn 128 maalmood kadib waxay ku kulmeen toogga Muhakas ee dhaca koonfurta dalka Hungary aroornimadii 12 Dilqacda 932 Hijriga salaadii subax kadib
ayuu bilaabay Suldaan Sulaymaan inuu khudbad xamaasadeed u jeediyo ciidamadiisa, wuxuuna ku dhiirigeliyey jihaadka isagoo ku soo gebagabeeyey khudbaddiisa. Ka soo qaada maanta in Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam idiin jeedo oo aad hor Ilaahay u dagaalamaysaan, taasoo sababtay ilintii ciidamadii Cusmaaniyiinta kana dhigtay kuwa ku dhiirada dagaalka. Haddaba markii la gaadhay casarkii ayay bilaabeen ciidamadii Hungary inay soo weeraraan ciidamada Cusmaaniyiinta, waxayna isku qaybiyeen ciidamadii Cusmaaniyiintu 3 qaybood oo kala ahaa. Kooxda hore waxay ka dhigeen ciidamadii fardoolayda ahayd, kuwaasoo shaqadoodu ay ahayd inay iska caabin yar ku sameeyaan ciidamadii Hungary kadibna ay dib u soo cararaan, halka kooxda labaad iyo saddexaad oo ahayd ciidanka intiisii ugu badnaa ay ku sugayeen ciidamada Hungary webiga kornihiisa. Markii ay dib u soo rogaal celiyeen kooxdii koobaadna waxay ku soo dhaceen ciidamadii Hungary shaqoolkii loo dhigay, taasoo ka dhigtay 200,000 oo askari, wax baktiyey iyo wax ku qarqoomay biyihii webiga xilli ay isku dayeen inay la baxsadaan lafahooda, halka 25,000 oo askarina gacanta lagu dhigay. Haddaba boqorkii Hungary wuxuu isagoo baxsad ah ku baktiyey webiga Muhakas, halka ciidamadii Cusmaaniyiintuna ay ka shahiideen 150 askari oo keliya. Halkaasna waxay ka soo hooyeen ciidamadii Cusmaaniyiinta guul lagu tiriyo guulihii ugu waaweynaa taariikhda, wuxuuna qabsaday magaalada Buuda. Sidoo kalena wuxuu sii waday dagaalka ilaa ciidankii dowladdii Cusmaaniyiintu ay gaadheen magaalada Vienna, laakiin uma suurto gelin inuu furto magaalada Vienna. Haddaba guuldaradii soo gaadhay Hungary waxay ku noqotay reer Hungary mid aan ka go'in maskaxdooda, heer ilaa maanta oo laga joogo 400 oo sano dagaalkaasi ay weli reer Hungary marka ay dhibaato ku dhacdo ay adeegsadaan odhanaysa waxa igu dhacday mid ka daran Muhakas. Dhinaca siyaasaddii soo dhowaanshiyaha Sulaymaan al-Qaanuuni iyo boqorkii Faransiiska, kadib markii la arkay awooddii Sulaymaan iyo boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo meelo badan oo daafaha dunida ka mid ah isku fidisay, iyo xaalkii Yurub oo markaas aad u liitay oo ay ka socdeen dagaallo sokeeye, sidoo kalena ay ka jirtay dib u dhac aad u weyn, ayaa boqorkii Faransiiska ee Faransigii koowaad oo tartan kula jiray boqorkii Roomaanka ayaa wuxuu fursad u arkay inuu Yurubta kale kaga adkaan karo haddii uu heshiis la galo dowladda Cusmaaniyadda ama Cusmaaniyiinta, taasoo joojin karta awooddii boqorka Roomaanka ee Charleskii shanaad. Haddaba markii la gaadhay sannadkii 1535 ayuu boqorkii Faransiisku wuxuu diray xoghayihiisii, kaasoo lagu magacaabi jiray Jean de Levora, si uu heshiis ula saxiixdo Sulaymaan al-Qaanuuni, waxaana heshiiskaas loo baxshay mucaahadada gaarka ah ee Cusmaaniyiinta iyo Faransiiska. waxyaabihii lagu heshiiyey ama qodobadii lagu heshiiyeyna waxaa ka mid ahaa: 1. Faransiisku waxay ka faa'iidaysanayaan u dhowaanshiyaha dowladda Cusmaaniyiinta ciidan ahaan, dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan, waxayna mucaahadadaasi u oggolaanaysaa inay u furto albaabo hor leh ganacsiga bariga, taasoo markii hore ay xoog ku haysatay dowladdii Boortaqiisku. kadib markii ay heshay marin badeedka Koonfur Afrika, waxayna doonyaha Faransiisku ku mari jireen si xorriyad ah. Qodobka 2 ee heshiiska, Faransiisku waxay xaq u helayaan inay ka ganacsan karto gudaha dowladda Cusmaaniyiinta. Qodobka 3, cashuuraha kastamyada ayay Faransiisku hal mar siinaysaa dowladda Cusmaaniyiinta. Qodobka 4, cashuurta ay bixinaysaa ganacsatada Faransiisku waxay la mid tahay kuwa ay bixiyaan Turkida ka ganacsada Faransiiska, mid la mid ah. qunsuliyad ayay Faransiisku ka furan karaan dowladda Cusmaaniyiinta dhexdeeda. qunsulkuna wuxuu helayaa xasaanad isaga iyo ehelkiisa iyo shaqaalihiisuba. qunsulka Faransiisku wuxuu eegi karaa falal dembiyeedka madaniga iyo milatariga, kuwaas oo ay geystaan Faransiiska ku nool dowladda Cusmaaniyiinta, isaga oo kaashanaya maxkamadaha dowladda Cusmaaniyiinta si xukunka loogu fuliyo dembiilayaasha. faldembiyeedka Faransiisku ay geystaan oo kula kacan Cusmaaniyiinta lama xukumayo, maxkamadna uma yeedhayso qofka ilaa uu yimaado turjumaanka qunsulka. dhinaca kale, waxay xorriyad u helayaan diintooda iyo cibaadadooda. dhinaca kale, marka laga yimaado haybaddii iyo awooddii ciidan,
ee uu dhisay Sulaymaan al-Qaanuuni inta uu xukunka hayay oo 46 sannadood ah. sidoo kale waxaa lagu tiriyaa xukunkiisa in dowladdii Cusmaaniyiintu ay ku tallaabsatay horumar dhanka aqoonta iyo dhismaha gudaha ah. waxaa xilligiisii la yagleelay masaajidadii ugu waaweynaa ee laga fuliyo dhulkii Cusmaaniyiinta sida masaajidka Sulaymaaniya. waxaa door muuqda ku lahaa wakhtigiisii wadaadada diinta heer lagu tilmaamo Sulaymaan al-Qaanuuni hogaamiye aan tallaabo qaadi jirin isagoon fadwo weydiisan wadaadada diinta. markii uu dhintayna wuxuu amray in lagu agduugo sanduuq uu ku kaydsan jiray dhammaan fadwooyinkii ay u fadwoon jireen, waxaana ugu weynaa wadaadadaas wadaadkii la odhan jiray Abu Sacuud Afandi oo lahaa kutub badan oo uu ka qoray qur'aanka iyo culumta diinta. sidoo kale xilligiisii waxaa soo baxay injineero ka yaabiyey caalamka lana yimid dhismayaal aan xilligaasi la aqoon dunida. raggaana waxaa ka mid ahaa Zenan Basha oo ahaa injineerkii dhisay qasriyadii iyo masaajidadii ugu waaweynaa xilligii Cusmaaniyiinta sida masaajidka Sulaymaaniya ee dhaca qaybta Yurub ee magaalada Istanbul. Suldaan Sulaymaan wuxuu dhintay sanadkii 1566 isagoo jooga magaalada Siktora oo xilligaasi rabay inuu furto magaaladana ku hayay go'doon. wuxuuna ka tegay mid ka mid ah dowladihii ugu baaxadda iyo haybadda weynaa ee aadanuhu ka yagleelo dunida tan. maantana halkaa haynoo joogto. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.